waxaa maanta magaalada muqdisho soo gaaray sidii ay xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka soomaaliya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo dhowaan laga qaaday xilka taliyaha NISA kadib markii kiiska Ikraan Taliil Faarax lagu eedeeyay taliska nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya. Fahad Yaasiin oo muddo ku maqnaa safar dhinaca dibadda ayaa la xaqiijiyay inuu maanta kasoo degay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee Muqdisho kadib markii diyaarad gaar ay kasoo qaaday wadanka Turkiga. xukuumadda federaalk Soomaaliya weli ma aysan xaqiijin imaanshaha Fahad Yaasiin hase yeeshee waxaa safarkiisu ku soo aadayaa xilli maalmo ka hor laga celiyay wadanka Jabuuti diyaarad oo saarnaa taa oo ka timi wadanka Turkiga dibna loogu celiyay dalka Turkiga. Fahad Yaasiin Xaaji Daahir taliyihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya wuxuu muddooyinkii lasoo dhaaf ku maqnaa wadanka Turkiga waxaana la sheegay in imaanshihiisa ka dambeyso kadib heshiis si hoose xal loo kala dhex dhigay madaxweyne Farmaajo iyo Wasaare Roble taas oo xilligan lagu xalinayo khilaaf ku dhexeeya madaxda dowladda federaalk Soomaaliya. khilaaf ku dhexeeya Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweyne Farmaajo ayaa ka dhashay kiiska Ikraan Taliil Faarax iyo sidoo kale arrimaha doorashooyinka dalka waxaana xilligan la qorsheynayaa in xal laga gaaro isla markaana la dhameeyo khilaaf ku dhexeeya madaxda dowladda federaalk Soomaaliya. imaanshaha Fahad Yaasiin ee Muqdisho lama oga waxay ka bedeli kartaa siyaasadda Soomaaliya hase yeeshee wuxuu xilligan uu ku soo aadayaa xilli madaxweyne Farmaajo uu aqbalay in xilkii laga qaaday isla markaana uu magacaabay la taliyaha amniga ee madaxweyne Farmaajo. shirkii uu ilaamiyay madaxweyne Farmaajo ku saabsanaa in khudbadda uu ka jeedin doono Fahad Yaasiin kuna saabsan kiiska Ikraan Taliil Faarax ayaa la dhowrayaa xilliga uu qabsoomayo.